السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته أديات بني سلامية. سؤال اللي سويدينا وحي تاهي مان كلا عجيسان كرا إنترنت كلا عجم الله جهرة. جوابت وها هدي طريقيسة صح ده أدرت. أنا حافظ الجوجا العجم من هالي كرا ها واد هالي كرتا هذا طريقي صح ده مرت. ما أنت مشكلة دي كورونا فيروس أيادتكي ودي إني بحان يا إني شقتجان. لكن إذا صارتها شركتي وأوينا وحيد هذين جوريها على الشقي صما مركا ما أنت أذو جوري الجوجا لعج جوري وات سمين كرتا لكن سيد حير كإذا محير مر ما أنت هذا أنا جو تا استعمالية أيان ربا إنا كنت سمعت مشاريع ده لبعض كون إلا بعتك يوحي سا محيد لغة دقائق مشاريع ده أقول لعج فربضن أما أقول معاش فربضن إن هالكيبا على سمية waxaa laga sameeyaa waa e-commerce waa online store oo ka dhigan ganacsi online e-commerce ganacsi online anigu ma samaysan karo war anigu Mastercard iyo Visa iyo waxa iyo Djibouti baan joogaa Soomaaliya joogaa halkaas seen u samayn kara waad samayn kartaa laakiin videogan bal ila soo iyo video dambeyn soo wado bal in ila soco hadhowtooda waxa dhici karta inay ku dib yaraato maanta waxaan rabaa inaan kaaga hadlo muxuu yahay e-commerce waxa waa ganacsigii aan garanay caadiga ah oo internetka loo bedelo waxbaad iibsanaysaa may waxba laga adaa iibinaya may adaa iibsanaya laakiin waxa la isticmaalayaa waa internet internetka maxaa loo isticmaalaa waa takriyate maanta dadka isku soo dhawaashaha daadeed ayaa wixii ganacsata oo meena halka maanta ay online tahay marka ganacsiga imaka ma bilaabi karaa mise waa inaan ganacsi lahaado labadaba way jirta adoo ganacsi offline adoo ganacsi caadi iska lahaa e-commerce wadu bedeli karta may adiga oo ganacsi aanan maxay way lahayna e-commerce waa bilaabi karta ganacsiga marka e-commerce-gu laba midba uu noqon kara ta ugu dhib yar waxa weey waa inaad social media isticmaashid Facebook Instagram iyo Twitter ayaad alaab ku iibin kartaa maanta qof Soomaali ku hadlaya oo Facebook lahayn way yarta ma jirto ma oran karayo laakiin way yarta si loo helaa qof bila Facebook ama qof bila Instagram dhalinyarta iyo dadka waaweyn maanta dhamaantood way waliin marka saa daraadeed ganacsi adiguna maxaad uga sameyn lahayd ila dadka halkaas ay wala joogaan Soomaa muhiimadu waa taa weeye ki aad ganacsigaagi offline ka e-commerce waad ka dhigi kartaa ganacsi jiidan inta waad bilaabi kartaa haddaba maxaa e-commerce ay muhiim u tahay oo maanta labada nin ee maanta adduunka u caan horta ninka ugu horreeyay maanta adduunka u caan waa Jeff Bezos waa ninka Amazon ganacsi maanta waxa leeyahay qofkii adduunka u lacag badnaa waa nin ganacsigiisa e-commerce ka bilaabay Amazon cid aan garanayn ma jirto way yartahay cid maxaad aan garanayn waa online store weeyaan waa ganacsi online bariga hore waxa la oran jiray Amazon waxba leh inkastoo imika iyadu alaab yeelatay bariga waddanka alaabteeda baa lagu iibin jiray marka saa daraadeed waxa muhiimada looga baahan yahay e-commerce waxa weeyaan waa inexpensive qaali ma aha inaad bilowdid ganacsi caadi hadda rabtid inaad bilowdid waa inaad balaas fiican waa inaad heshaa waa inaad kiradii iyo damaajiga lacagta waa inaad bixisaa waa inaad kooraankii bihi waa inaad samaysaa waa inaad shaqaale soo raadsaa waa inaad meeshii fariisaa Sooma ganacsiga online maantada hadda aan kula hadlo bilaabi kartaa berina waa bilaabi kartaa laakiin si loo bilaabi karo bal ila soco video ganacsiga offline ka marka ganacsiga hadda caadi macdar hadda furitid waa inay ku bartaan dadku muddo qaadan laakiin ganacsiga e-commerce da bilowdi dadku hore bay ku baran karaan waayo Facebook baad isticmaalaysaa Facebook cid kasta ku jirta Facebook dadkana saas ku baraysi waa nuu iman doonaa bar Facebook marka saa u dhigtid dadka kuma arkeen saa dadku oo dhow gaarsiinaysan waa u iman doonaa hadii la yiraahdo ta kale muhiimada la waxa weeye ganacsi e-commerce dad bilowdid customer fara badan waad heli kartaa waayo macdar caadi ma ka hadleedahay cadar baad iibisa ama kabad iibisa meesha adaayare 4.4 cut for cut ama 5 for 5 ama adu la 20 mitir kare waa inta qof ay iman kartaa yarta Soomaa
laakiin ganacsigaaga online-ka halkii midhba 100 qof oo iman kara inta oo isagu qaadi karay ganacsiga caadi haddaad furatid waqti la shaqeeyay leedahay 6daad furtay 12 ka rawaxi 1 rawaxi 12 ka rawaxi waqti aday ku taal laakiin ganacsi online markaad furtid 24 hours open weeye ama seexo ama soo jeed uu shaqeynaya lacagtan way ku shaqeynaysaa la soco ta ugu muhiimsan waa caynka weyn intaad hurdid lacagtina way ku socotaa kaba soo qaadi ma ganacsi caadi aad samaysay ganacsigaaga yar 20 mitir kaareeya ama 30 ama 50 mitir kaareeya ama inta doonaba aadee alaabtii baa badatay waxaad rabtaa alaabtan meel aad Soomaa waa inaad meel kale kireysid laakiin ganacsiga markuu online uma baahnid inaad meel kale kireysid waxa gool online inta doontaad samayn kartaa haddii aad online tahay weeyaan okay haddaba ganacsiga online-ka labaanu kala qaybinaynaa waxyaabooyinka la iibinayo marka laga hadlayo alaabta lagu iibinayo marka laga hadlayo ganacsiga online-ku laba buu kala baxaa waa maxay waa digital product iyo physical product ganacsi online ayaan bilaabay waxbaan rabaa inaan iibiyo waxa aan rabaa inaan iibiyo waa laba mid oo waa inuu physical product ah waa maxay waa wax la taaban karayo oo la iibinayo kabo shandad dar wixii ciyaal ku ciyaarayeen duruuc wuxuu doonaba aad waa wax la taaban kara Soomaa taa waxa magaceeda waa physical product taa waad ku iibin kartaa hay digital product waad ku iibin kartaa digital waa maxay wax aan la taaban karin imaka macallin baata koorsyaal baad yaad rabtaa inaad dhigtid meel yar baad furan kartaa waxaan ku leeyahay koorsaaga waxa soo meel yaad digan kartaa kadib markaas ku iibin kartaa may waxaad ay consultant baata oo khabiir baato khibradaada rabtaa inaad dadka maxay ahayd ay lacag ku bixiyaan still okay waa maxay ahayd waad ku iibin kartaa may logo-ga ayaa design karaysaa website-aad samaysaa waxa soo meel still waad samayn kartaa marka loo eego e-commerce-ga inta qaybadooda kala kacaan alaabta la iibina waa labada qayb laakiin e-commerce-ga marka loo kala qaado qaybaha suuqan aad gelaysid sidoo eegaya waxaan uga jeedaa waxa weeyaan adoo ganacsi baad bilaabay Soomaa waa business waxaad bilaabaysid business-kaaga ayaad rabtaa inaad ka iibisid ma business kale mise customer marka B2B bay noqonaysaa adoo business baa tahay business kalena waad ka iibinaysaa waa B2B baa la may anu waxaan ahay business waxaan ka iibinaan customer qof kale oo caadi oo dad caadi imaka soo qaad imaka kaba iyo shandada iyo muraayada iyo telefoon markaad iibinaysid waxaad ka iibsanay waa qof caadi ah Soomaa xataa shirkadaha ka socda laakiin waa qof caadi laakiin marka aad service sameynaysid kaba soo qaad imaka waxaad leedahay gaariyaal waaweyn baad leedahay may waxaan ku leeyahay waxaad tahay accountant baad shirkad baad oo waxaad rabtaa inaad xisaab xidhiidhkaas marka waxaad u shaqeynaysaa waxan waa xisaabiye taa waxay muhiim tahay inaad kala qaato waxa weeyaan dadka aad ka iibinaysid ayaa kala duwan sida loola hadlay way kala duwan tahay sida wax looga iibinayo kala duwan tahay qof marka la hadlaysid iyo shirkad marka la hadlaysid way kala duwan tahay waxyaabooyinkan aad ku qoraysid Facebook-gaaga ama website-ka marka shirkad ka iibinaysid iyo marka qof ka iibinaysid way kala duwan tahay marka imaka inaad qarartay weeyaan waxa aan rabaa ma B2B ama B2C taa waa mid okay haddana waxa kale jira platform-ka aad isticmaalaysid maxaad rabtaa inaad ku iibisid waxyaabooyinka lagu iibinayo waa dhowr qaybo kaba soo qaadi marka waxaa jirta ganacsi sii jiray oo rabtid inaad wax ku iibisid haddii aan ku dhib yaray waxa weeyaan meel baa jirta kaba soo qaadi marka suuq ayaa jira imaka Balesrambo ama imaka naga Djibouti kala Balesrambo meel baa jirta meesha baad rabtaa inaad ganacsi ka bilowdo Soomaa marka ama mall ayaa jira mall-ka ayaad rabtaa inaad ku biirtid oo ganacsi ku heshiis taa digital marka loo eego e-commerce marka loo eego waxa weyn waa shirkado sii jiraad ku dhex biiraysaa maxaa kamid ah Amazon eBay waa meel platform sii jiray marketplace sii jiray oo rabtiin aad wax ku iibsid taa mashaakilkeedu marka qaar kood waxay tahay waana fiican tahay wax kasta fiicni iyo wanaagba way leedahay waxa ku fiican tahay waxa weeyaan waa suuq sii jiraad ka qayb galaysaa okay marka ma waxaad rabtaa inaad dadka ka qaybishid oo Amazon ay mise waxaad rabtaa website-kaaga inaad adigu dhistid oo product-kan halka ku sameeysid oo backend-iga aad isticmaashid Shopify
iyo shirkado fara badan oo payment gateway yacni way yara adkaanaysaa imakaan macnaheeda laakiin waxaan rabaa mar kale inaan very detail inaan kaaga sheekeeyo qaybtaas oo kale website-kaagii ayaad alaab dhigan kadibna lacagta credit card iyo master card dadka ay gelinayaan waa mowqicaaga marka waxa maxay waxa lacagta lagu bixinayo maya intaaba waan ka tagiyo waa complicated weeyaano tiyarada dib yareed baan qaadana waa Facebook iyo Instagram ayaan qaadan oo iyagu oo yacni waxna way ku fiican yihiin waxna kuma fiicna laakiin waxyaabooyinka ay ku wanaagsan waxa kamid ah lacag lagama rabo hadhow ganacsiga xayeysiiska markaan ka imano inta u horeysa lacag lagama rabo waxa doonto oo waldii kartaa marka aniguna taan kugula talinaa marka u horeysa waxa weeyaan wana taa ku bilowdaa Facebook iyo Instagram inaad ku bilowdaa weeyaan waanu iman doonaana sa loogu bilaabaa waanu iman doonaa product sa loo sameeyaa laakiin bal imakaan inta u horeysa ila soo imaka website haddii aad samaysatid waana ku sheego hadhowt wala wanaagsan imakaan ma wanaagsanay website waxa weeyaan wuxuu ka rabaa inaad website-kii marka hore inaad dhistid product-gii inaad ku listing garaysid kadibna inaad payment gateway aad ku xidhid oo ka dhigan bankaagii oo PayPal la sii mariyo Stripe la sii mariyo shirkado kale weeyaano lacag adiga ka goosan doona marka website-ku isaga ahaan wax fara badan buu ku wanaagsan yahay oo lacagtan adaa helaya laakiin waxyaabooyin uu ku xun yahay intaan waanu iman doonaa hadii la hadii marka aan kugula talna marka waras waxa weeyaan ku bilow kan raqiiska oo ka dhigan Facebook iyo Instagram ganacsigaaga imika jirana hadii uu digital haduu ahayno e-commerce haduu ahayna waxaan kugula talinayaa inaad e-commerce aad u guurtid hadii aad ganacsi aanad wali abuurina ka ugu muhiimsan ee maanta ugu dhib yar ee lagu lacagaysan karaay waa e-commerce maanta adduunka cid kasta oo lacag yeelatay waa e-commerce waayo waa alaab aad ka iibinaysid dad fara badan laakiin markaad ganacsi caadi aad sameeysan dadkan aad ka iibinaysaa way xadidan yihiin way yar yihiin meesha doontiba joogla way yar yihiin laakiin online ka markaad ku iibinaysid dadkaagu way fara badan yihiin online waxay ka dhigan tahay waa adiga oo magaalo kasta macdaar ka furtay taana maanta haddaad u fiirsid qofka magaalo kasta macdaar ka furnay waxa weeyaan waa dadkii in badan soo shaqeeyay lacagta laawiya videogan intaasaan ku joojinay hadii la hada haddaad u aragtid videogan inuu muhiim yahay asxaabta inaad la sii share geliso way wanaagsan lahayd qaybaha soo socdana hadii ilaahay raado waan ka dhigi doonaa bal wax taxano oo kale oo si aan gacanta aan ku qabto khibradda inta aan leeyahay adiga oo bilaabaya e-commerce insha Allah adigoona lacag ka heli doona hadii ilaahay raado aad iyo aad baad mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.